واتهاوى ما سد حتى تنسوق قبلنا ما سد وحنا مسك على هذا هبلا الصومالية والما سد قرط عرسية ترجمتين ما سد تنوع عرسة لبدي يكون يلي حتى ماك وما سوين كوجو هريي اللي ويجا سوق عبد الرشيد عبد المسلم عبد الرشيد الصومالي معلك أنا كل شيء سوقان تريقة waxay ka waramaysaa uun hablaha Soomaaliyeed dhaqankooda in 20 sifo leeyihiin 20 ka sifo 10 ay yihiin sir waa la sheegi doonin 10 kale aanu sheegi doono 10 ka kalena ay ka farcamay un diinta waxay waayo qofka diin yeesho akhlaaq waa yeelan akhlaaq yeesho dhaqan waa yeelan dhaqan yeesho dhaweernimo waa yeelan dhaweernimo yeesho ficil ba yeelan ficil yeesho daran sidaa wax ka diinta ka farcamay marka sidaas un baan magaca uga dhigay hablaha Soomaaliyeed waaye ma soo xoranaysa hablaha Soomaaliyeed sadrigayga jalaa inka soo saamiyo surmiya maray dartood iyaga caalamka sita hablaha Soomaaliyeed hadaan soo rocooda guud hadaan yar sarsarana marna ma sifayn kare sagsaag baan ku dhaafaya hablaha Soomaaliyeed oo kay sifadooda guud iyaga caalamka sita 20 sifay dheerihiin hablaha kaga sutayhiin 10 sifaat daahiro saana aad u karan kartaa 10 sifo ee galana sir bay yihiin qarsoon sumada muuqataana hataan ku saafaya sadri laabta furo qalbigana qofka saar marka qodobadii ma tahay qodobkooda waa diinta hablaha Soomaaliyeed ilaahay u salaamayaan isaga u soomayaan sakada u bixinayaan qalbi saafi hayaan ilaahay saadira oge sidee saadaashu tahay samaan ba ka muuqato sadriga waxa kuma hayaan laba xishood marka hablaha Soomaaliyeed xishood baa u seero hadii uu sumahayana saal kuma sheegayaan hadii uu sumahayana sawtay ka xidhanayaan sinaba kuma sheegayaan waxay ka sitaana taa suuradii hooyadeen ayaa sidaas ahayd qodobka saddexaad waa quruxdii hablaha Soomaaliyeed suurad qurux iyo asluub iyo saqaroorka dheer sinaha qaabkoodu yaal samayskii original inta ay ka simeeyeen cid la simaa ma jirto hatta soo jilcdo yoom indhaha soo marogtid sibaad uga buuxsataa markaas sababka iyo beerka lagu saaqayaa sadhigu samaysmaya jacayl uu sura ka dhigto hablaha Soomaaliyeed qurux iyaga u sita cid la simaa ma jirto hatta dina Soomaaliyeed hatta salaasiin dhex gasho dadkii sidin iyo siin kulkood ka socaysa inay Soomaali tahay ka afraad waa dhaqankii hablaha Soomaaliyeed dhaqan suubabisitaan natida way soorayaan salliga way u daadiyaan samcad bay leeyihiin jirkooda ma siinayaan daqaal soo dhacay habeen mid ay subax isbarteen intaba way ka saahideen suuxdi bay kaga jiraan ka shanaad waa dulqaadkii hablaha Soomaaliyeed dulqaad bay ku sutan yihiin mid daacadsaday salaad surankay ku dhaafayaan salaam ma celinayaan talixaad waa dabeecadii hablaha Soomaaliyeed duntay siladoodu tahay dabeecad baa solgaan samir bay leeyihiin haduu soo jigeedan qaro saal kuma hiifasee afkeeda ka seeraysaa samaan bay muujiyaan ka todobaad waa dhowrsanaanti hablaha Soomaaliyeed dhowrsanaan iyaga u sita maha hablihiiba siin amba Ameerika sidood intay suuqyada galaan waxay doonaan sameyn siday doonaan u dhaqma laakiin sadrigay jirkood suurka ilaa timaha sare maray ku seerayaan sharaf baa u saasaho diin macaan bay sitaan qodobka sideed waa dhabeelnimo hablaha Soomaaliyeed dad siran ma aha ogow waxa sababayna taa xalaashii lagu saldhigay ee sawjbilowgeed ahaa sagaalaad waa ficilkii hablaha Soomaaliyeed haday samatahay wanaag saani kugu galayaan hadii aad soo bidana sibay kugu hiiliyaan sidaas oo ficil ku jiro qodobkii toanaad marka dareen hablaha Soomaaliyeed dareenkii ka sameeyeen nima Soomaali ahayn siwaajka wala ugu taan naftoodan ka siisanayn hadii ay sikanaatay inay salna warigtaan marka tobanka qodob waa waa tahay daawadayaal waxaan soo gaarnay guntiga gabagabadii barnaamijka awal hadii aan fursad ku siiyo halkii ka salaamsan dadama Soomaaliyeed aan kala qaaday iyo deyntii wajigeeyo waa garanaysaa ugu horeysa laakiin Soomaaliyeed meel ka soo joogaan waa tahay maxaa kale soo looga tigaysaa daawadayaasha daawanaya ama bajacayl inay soo galaan hal-abuurnimada horta ilaahay baa weyn horta ma weydii dee taariikh weyn ma hayo laakiin waxa hore lahaa maasada waa shaqo
shaqo qarabaan bashay shaqo qarabaan u haynaa dawladda laakiin ciidinimo ugu nama dhaarteen oo dee wali waxba nagama hoos qaado xilli lagu baraarugayo oo dhawaad doonta un boolan waxaan dhalinta ugu tagay inay waajibaad saaraan markay wax xuranayaan waxa inay tacaalo badan u keenaan inkastoo uu jiro dee dareen dabada ka riixayo oo sida xabashada imka ku marnay markaas ma ka taroori kartid laakiin se waxaan uga tagi lahaa inay dee dhaqankana lagu saleeyo meelo badan wax laga eego waatay daawadayaal intaas waxaan kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeennii halabuurka iyo hibada qofka oo toddobaadkiiba hal mar idinka baxa shaashada telefishinka nuuraan 24 TV xaruntiisa guud ugu leeyahay magaalada Hargeysa barnaamijka waxaad la socodsiinaysay anigu Israel Ahmed Maxamed toddobaadkana waxay noogu martay abwaan qalinle abwaan wad maadsantahay sida waqti ay noogu suurtay barnaamijkan quruxda badan nooga soo qayb gashay aad madantiisa ka barnaamijka ugu kulmi doono waxaan ka teganaa sida iyo amaana Allah